waxaan soo ogaaday arrin adiga kaa daahanoo xooggaaga iyo boqortooyadaada aanad ku ogaan karin sir kaa maqnayd iyo war adiga kaa qarsoonaa ayaan kuu soo helay. nabadgelya korkiisa ha aatee nebi saleebaan ayaa wuxuu go'aansaday inuu arlada shaam ka dhiso aqalka baytulmaqdis loo yaqaan si uu eebbe ugu dhowaado cibaadadiisana uu u fududeeyo. guntiga ayuu dhiisha isaga dhigay ilaa uu si xoog leh dhidibada ugu aasay tiirarkana ugu adkeeyey. maalintii uu dhismaha dhammeeyey ayuu farxay oo laabta u qabowday. markaas bay naftiisu doontay inuu u xajiyo isaga oo uun fara badani ay ku weheliyaan. xaramka ayuu markaa nebigii u ambabaxay. kolkuu tegayna intii muddo ah ayuu ku nagaaday. wakhti kadib ayuu haddana ka sodcaalay. wuxuu safarkiisii ku gaaray dhulka Yaman, gaar ahaan agagaarka magaalada Sanca. meel biyo leh oo uu dego ayuu doondoonay. geed dheer iyo geed gaabanna wuu u koray, ha yeeshee wuu ka sori waayey. il iyo ceel toona wuu heli waayey, baafintoodiina daal buu ka kororsaday. nebi saleebaan ma quusan. dadaalkiisii ayuu sii kordhiyey. shimbirihii ayuu isha mariyey. wuxuu ka dhex raadiyey shimbirka guuguulaha si uu ugu soo sahamiyo meel ay biyo ku jiraan, ha yeeshee wuu maqnaa. markaas buu ku dhaargalay inuu caddibi doono amaba uu gowrici doono haddii aanu ula soo noqon wax cad iyo marmarsiinyo run ah oo looga qaadan karo. wax yar kadibba guuguulihii waa kan wuu yimid, isaga oo golo dalaalaadinaya oo madaxa foorarinaya, nebigana ka cabsanaya. wuxuu doonayaa inuu isfurdaamiyo oo wixii uu ku maqnaa uu si fiican u sheego si cadhada loo qabo ay naftiisu uga badbaado. intuu nebigii u soo dhowaaday ayuu ku yidhi, waxaan soo ogaaday arrin adiga kaa daahanoo xooggaaga iyo boqortooyadaada aanad ku ogaan karin sir kaa maqnayd iyo war adiga kaa qarsoonaa ayaan kuu soo helay. waxaan tegay dhulka Saba la yidhaahdo oo warbiya kama dhibcaana aan kaaga. sheekadaas xiisaha lihi waxay qaboojisay cadhadii Saleebaan haysay. wuxuu jeclaystay durba in warka loo soo gudbiyo. markaas buu shimbirkii weydiistay waxa uu ku hulluban yahay inuu diirka uga qaado. wuxuu ku jawaabay, waxaa reer Saba u talisa haweenay wax walba haysata oo carshi weyn leh, ha yeeshee waa duul uu shaydaan gacan ku dhigay oo si walba ugu dhex fiday. waddadii eebbe ayuu ka weeciyey, hanuunkiina wuu iska hortaagay. iyada iyo qoladeeduba qorraxda ayay caabudaan. markaas baan ka argagaxay, arrintooduna aad ii yaabgelisay. marse hadday yihiin duul xoog iyo magac weyn leh, waxaa ku habboonaa inay u sujuudaan eebbaha og wax walba oo qarsoon, eebbaha carshiga weyn iska leh ee isaga mooye mid xaq lagu caabuda aanu jirin. warkaas loo soo tabiyey ee la yaab kale ayuu Saleebaan la abankaagay. wuxuu goostay in aanu shimbirka ka naxin oo aanu warkiisa ku beenin. markaas buu ku yidhi, warkaaga waannu u fiirsan doonnaa. haddii aad run sheegayso iyo haddaad been sheegaysana waannu kala ogaan doonnaa. haddana wixii aad ii soo tabisay haddiiba ay wax ka jiraan, bal warqaddaydan qaad oo halka ay joogaan ku tuur, dabadeedna meel ugu gabbo si aad u ogaato ra'yigooda iyo jawaabta markii ay akhristaan ay ka bixin doonaan. guuguulihii oo dhambaalkii xambaarsan ayaa dhulkii boqorad Balqiis ula duulay. aqalkii weynaa ee ay Ma'rib ku lahayd kolkii uu gaarayna korkeeda ayuu ku tuuray. iyana way furatay, mase waxaa ku yaal inuu yahay dhambaal Saleebaan ka yimid, magaca eebbaha naxariista badanna uu ku bilowday. wuxuuna farayaa in aysan isaga iska weynaysiin, iyaga oo wada muslim ahna ay u yimaadaan. kolkaas bay boqoraddii waxay isugu yaadhay wasiiradeedii, dowladdeeda kuwii ugu sarreeyey iyo dhammaan madaxdii boqortooyadeeda. waxay u sheegtay in ay ku kalsoon tahay, taladoodana ay baahi weyn u qabto. iyagiina waxay ugu jawaabeen, waxaannu nahay rag dagaalka iyo halganka ku wanaagsan, mase nihin kuwa ra'yi iyo talo la weydiiyo. arrimaha iyaga iyo maamulkoodaba adiga ayaannu kuu daynay, adiga ayaana nooga fiican. arrintan hadda ina hor taalna adigu ka tali oo go'aan ka qaado. annaguna wixii ay kula noqoto ayaannu ku dhaqaaqi doonnaa, halhaleelna waannu ku fulin doonnaa. jawaabtii raggeeda waxay boqoraddii ka gaaratay in ay xagga dagaalka u janjeeraan. markaas bay warkoodii ku gacan sayrtay oo taladoodii tu aan waxba ka jirin ka soo qaaday. waxay si wacan ugu caddaysay heshiisku inuu wanaagsan yahay, caqliga fiican dadka lehna ay ku habboon tahay xagga wanaagga inay u xagliyaan. waxay ku tidhi, boqorradu haddii ay magaalo ka ilhelaan oo ay xoog ku qabsadaan, way gabawaraanoo gabaara gediyaan. kolkaas bay ilbaxnimadeeda cagta mariyaan. gobtii magaaladaas degi jirtay ayay gun ka dhigaan. ummadda way gumaystaan. wixii ay doonaan bay ku faraan, sida ay rabaanna way ka yeelaan. sidaas bayna boqorradu weligood iyo waaqood ahaayeen, caadana u ahayd.
waxaan goostay saleebaan inaan u diro hadiyad wax walba oo qaali ah ka kooban oo aan sidaasna boqortooyadayda uga nabadgeliyo isla markaasna aan ka ogaado waxa uu damacsan yahay iyo weliba habdhaqankiisa. maalintaas bay meel isugu keentay alaabadii hadiyadda ahayd ee ay diri lahayd. ragga qoladeeda kuwoodii ugu sharafta badnaa ayay u dhiibtay, iyagiina xagga saleebaan ayay ula kaceen. guuguulihii ayaa markaa saleebaan warkii uu soo maqlay ula soo orday, isaguna wuu isu diyaariyey. wuxuu u dalbaday qaabilaadda ergada ku soo socota ee ay boqoraddu soo dirtay. sidaa darteed jinnigii ayuu wuxuu faray inay dhisaan dhismo la yaab leh iyo daar rukumo adag leh oo lagu indhadaraandaro, dhugashadeedana lala amankaago. ergadii markay soo dhowaatay oo ay dhismahaas arkeen ayay ashqaraareen. isla markiiba saleebaan baa ka hor yimid oo weji furan ku soo dhoweeyey, la kulankoodana ku faaraxay. isaga oo raba inuu dantooda ogaado waxa ay u socdaanna ka xog ogaalsado ayuu ku yidhi, niman yahow maxaad u jeedeen? markaas bay hor dhigeen hadiyadihii qaaliga ahaa ee ay u sideen, iyaga oo filaaya nebiga wanaagsani inuu ka oggolaado dabadeedna uu raalli ka noqdo. ha yeeshee inuu ka guddoomo nebigii wuu diiday. kii uu farriinta ugu dhiibayna wuxuu ku yidhi, u celi hadiyaddooda. aniga rabbi arsaaq ballaaran ayuu i siiyey, nolol wacanna wuu iigu deeqay. wuxuu igu galladay nebinimo iyo boqortooyo iyo wax aanu cidnaba weligiis ku galladin. aniga oo kale sidee buu raalli uga noqon karaa xoolo lagu laaluusho inuu gacanta u taagto? dhulka muggiis dahab la-egsa ha noqotee miyay iga suurowdaa intaan cid ka qaato inaan kaga jeesto fidinta dhabbaalka eebbe iyo ereyga kelinimadiisa? waxaad tihiin qolo nolosha adduunyada mooye aan wax kale ogayn, hadiyadda ay sidaanna ay la weyn tahay. ergayahow ku noqo oo u sheeg inaan ugu soo duuli doono ciidamo aanay taag u lahayn oo aanay u adkaysan kari doonin. u sheeg iyaga oo gun ah dalkasaba inaan ka wada eri doonno, awoodda iyo boqortooyada ay haatan haystaanna aanu weysiin doonno. ergadii baa markaa dib isaga noqotay, waxayna balqiis u sheegeen wixii ay soo arkeen iyo wixii ay soo maqleen. markaas bay tidhi, waxa aanu ku qasbannahay warkiisa inaannu maqallo, amarkiisana aanu yeelno. waa inaannu taladiisa u hoggaansannaa oo weliba dacwadiisa aanu si deg deg ah u qaadannaa. markuu ogaaday inay ku soo fool leeyihiin ayuu nebigiina jinnigii loo sakhiray ee agihiisa joogay wuxuu ku yidhi, ka hor iyaga oo wada muslina inta aysan ii imaan, kuma ayaa ii keeni kara kursiga boqortooyo ee ay ku fadhiisato? jinniga xoogga badan midkood ayaa kolkaa yidhi, aniga ayaa kuu keenaya inta aad goobta xukunkaaga fadhido. taasna waxaan ahay nin xoog u leh laguna aamini karo. ha yeeshee kii aqoonta iyo murtida loogu deeqay ayaa ka badiyey oo nebigii ku yidhi, aniga ayaa kuu keenaya inta aanad libiqsan, ishaada iyo baalkeeduna aanay isu soo noqon. wuxuu saleebaan ku hamiyey carsiga balqiis inuu agtiisa yaallo, taasina way u suuro gashay. markaas buu yidhi, tanina waa dheeraad uu eebbahay i siiyey iyo barwaaqada uu igu bantookay qaarkeed, waana si uu iishi rabo, bal inaan mahadnaqo ama aan ku gaaloobo. qofkii barwaaqada la siiyo qadariya eebbana ku shukriyaa, naftiisa ayuunbuu u shukriyey. hase ahaatee kii barwaaqadiisa ku kufriya oo ay naftiisu hoyga xumaha noqotana, wuxuunbuu ka mid yahay kuwa adduun iyo aakhiraba ku hoogay. rabbina waa mid uunkiisa ka deeqtoon kana maarma. mar kale ayuu saleebaan ciidamadiisii wuxuu ku yidhi, carshigeeda dooriya oo muuqaalkiisii hore wax ka beddela, si aan u aragno bal inay garato iyo inay garan weydo. kolkay timidna waxaa lagu yidhi, carshigaagii boqortooyo sidan ma u ekaa? kolkaas bay la noqon weyday. waxaa horteeda ka muuqdaa inuu noqon karo carshigeedii ay dhulka saba kaga timid. hase ahaatee waxay aragtay astaamo uu lahaa oo ay ku tiqiin, waxayna dhab ugu fiirsatay bilicdii ay ku ogeyd. arrintaas lama firaanka ah intay la yaabtay ayay tidhi, waxaad mooddaa qudhiisii. iyada oo amankaagsan oo waxba u kala caddaan laayihiin ayay taagnidii ku qallashay. markaas buu saleebaan amar ku bixiyey in la dhiso daar gebigeedaba muraayado cadcad ka samaysan. markii la dhammeeyeyna boqoraddii ayuu u yeedhay oo soo daawisiiyey. markii aragtana intuu biyo mool ah ula ekaaday ayay lugaheedii maradii ka qaaday. dabadeedna waxay tidhi, alla ilahe, tani waa daar si weyn loogu farayaraystay oo quraarada ka samaysan. maalintaas buu daboolkii damanidu ka faydmay. maalintaas bay waxay afmuggii ku tidhi, eebbow, intii muddo ah ayaan cibaadadaada ka sii jeeday, naxariistaadana aanan quudarayn. naftayda ayaan sidaa ku dulmiyey, iftiinkaagana meel cidlo ah
ayaan isaga xayiray. eebow hadda ayaan Saleebaan la muslimay, aniga oo ay iga dhab tahay oo daacaddaada u tartaban, adiguna waxaa tahay inta naxariisata eebbaha ugu naxariista badan.